بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan joogaa xaafadeydii gurigeygii waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaago in ay ka kaaftoomaan ama aysan u baahnayn khudaartan laga keeno Itoobiya sida baradhada basasha sinjibiisha basbaaska si gaar ah waxaan waliba oran lahaa yaanyada ama tamaandhada uma baahnid tamaandhada Itoobiya waa aragteen markay kartoon ku jirto ila furayo waxay leedahay shiir ama ur boysin ah oo aad karasanaysid laakiin markaad gurigaaga aad qasacada caana booruhu ka dhamaado ama weel yar oo baalka yar dustbin-ka la yiraahdo ama caaga saliidda laga cabo tusaale haddaan u soo qaadano kan oo kale ma joogo waxa ma joogo tusaale labaad waa kuwa lagu keeno shokolaatada ama waxyaalaha macmacaanka ah waxaad ku beeran waa basbaas wax dhibaato ah ma laha waxa kale oo isticmaali kartaa kuwa aynu u isticmaalno ajiinka ama laxooxda markaynu qasanayno oo daldalolinaysa yaanyada basbaaska barbanooniga baamiyaha kulligood ku beeranaysa aniga waxaan sameynay tijaabadaas oo ah bal inaan yaanyada ku beerno qasacadaheena waad aragteen wuxuu ku beerantahay qasacad caana booraha dhererkeedu hadda wuxuu marayaa mitir iyo 70 waxay noqon doontaa in musmaar haddana lagu darbiga lagu dhajiyo kor loo sii qaado waad arkaysaa flowerska ama ubaxii wuu socdaa xarig baa lagu xirayaa darbiga sii raacaysaa saddex tube gaaraysaa iyadoo oo waaweyn ah waa taas iyadoo hadda bisayl xigeena waka subax kasta waxaan u baahano ciidan ka guranaa waxa sidoo kale isku daynay inaan beerno baashiri sinjibiisha ibriiqan yar aad arkaysaa waa ibriiq waan goynay hoos baan ka daldalolinay sinjibiisha shaaha halkan kala baxana wax lacag kaaga baahaya male ciidii waa haysataa diradu meel walba taala biyuhu galaas baa ku filan dhowrkii cisho hal mar inaad ku shubtid marka waxa leeno ka baahan yahay xaafadaheena iyo guryaheena inaan ku beerano waxaan u baahanahay kan waa flowers waa geedka loo yaqaan ubaxa wuxuu bixiyaa markuu weynaado ubaxyo waa ka hadda marihii uu dhaliyay halkaas marka yaraw ka soo bixi doona kan waa maroonga geedka leeyahay dawada ah dawada faraha badan ka baxdo yaanyadii markale waa tan iyadoo halka dhinaca maanta halkan waxaan ku wareejinaynaa 200 oo geed oo insha Allah aan ku wareejinayno codsi nooga yimi deegaanka Midigale oo runtii hore aan dhir u siinay si wanaagsan u beeray oo bilicsan waxaan leenahay dhalinyarada ganacsatada dadka wax garadka ah in wadanka la qurxiyo deegaanka la wanaajiyo dhirtu waa nolosheena deegaankuna waa nolosheena waxa muhiim ah marka in qof walba uu geed beero especially magaalooyinka ka fog maaragtay laamiga leexsinta ah ama rafka ah waayo waxay haystaan dhul cogor ah oo wax ka bixi karaan waxa la dhalinyarada inay ku baraarugto wadaniyada waad arkaysaan dhirtan waxa laga beeray qashinka la tuuro oo caagada biyaha laga cabo oo ciid yar lagu shubay ayaa waxa lagu shubay marihii dhamaska waxa ka soo baxay geedka quruxda badan oo la harsan karo oo dugsiga leh oo quruxda leh marka insha Allah taala waxaan aad ugu mahad celinaynaa runtii xisbiga ama ururka ama xisbiga mideeye especially general Asad Ismaan oo beertiis ugu deeqdo deegaamada sida dhirta loo beeri lahaa bilic weyn ka sameysay ama aad ugu tabcay sidii loogu beeri lahaa magaalada Boosaaso dhir fara badan insha Allah taala waxaan geynay deegaamada Balbusle Baran Buraan Hadaftimo iyo meelo kale insha Allah taala haddana waxaan u mandaa meelo kale oo bidnaa kariim inay sidaas oo kale